السلام عليكم أصحابي maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay xalqadii labaad ee muuqaalada naxariistu ay ku dheehan tahay haddii aadan daawan qaybtii koowaad qaybta hoose ee muuqaalka ayaan ku dhigi doonaa marka hore soo daabo okay let's go aan u gudagalno muuqaalkeena macalinkan wuxuu bixinayaa cashar waxayna ku aadan tahay maalinta dhalashadiisa laba arday ayaa u soo galaysa si ay ugu hambaliyaan bal eeg falcelintiisa. Oh my goodness, I've never had a birthday cake before. Oh, really? weli ma aragtay mudaharaadayaal naxariis u fidinaya askarta dabcan waa maya balse waxaa niyadeeda ku soo dhacaysa dagaal iyo rabshad balse wiilkan wuxuu askartii u qaybinayaa biyo iyaguna falcelintooda laga dheehan karo furfurnaan iyo dhul cadeyn. caruurtan waxay salaan u saariyaan askarta taasoo muujinaysa xushmadda ay u hayaan maadaama ay qabtaan shaqooyinka asaasiga ahi. cunugan xanuunka la dala dhacaya ayaa la kulmay xidiga Neymar isagoona weydiistay marka xigta ee uu gool dhaliyo inuu sameeyo dabaaldegiisa. Neymarna wuu aqbalay isagoona sameeyay dabaaldega cunugaas. dabcan xanuunka haya dartiis gabadhan uma suurtagelin inay ku noolaato nolol qurux badan balse saaxiibadeed ayaa sameeyay ficil xusid mudan iyagoona u muujiyay garab istaag. eegan meelihiisa iska miiraafaya ayaa ku dhacay barkada dabaasha taas oo noqotay mid baraf ah balse waxa isla markiiba ka soo gaaray dadkii u dhawaa iyagoona ka soo saaray barkada. cunugan 2 sano jirkaahi wuxuu horaanba xaqiiqsaday sida muhiim u tahay in cuntada lala wadaago cid u baahan. ninkan ayaa casuumaad u fidiyay ciyaalkan danyarta ah isagoona u gadaya cuntada biisada maadaama aysan awoodi karin inay gataan maalin kasta balse maalintan ay u suurto gashay inay cunaan. odaygan barkinta uu hayo waa hadiyada ugu qaalisan uu haysto maadaama ay ku sawiran yihiin barkinta sawirada xaaskiisa qof uusan dib dambe hab u siin doonin. ciyaalkan oo wadada maraya ayaa arkay hog bilaa dabool ah balse waxay garwaaqsadeen inay dhibaato ka imaan karto hoggaas waxayna soo qaadeen dhagaxaan iyaguna ku agwareejiyay si looga digtoonaado. waa ficil ku diishan mudan. gabadhan ayaa ka soo qayb gashay xafladda qalinjibinta walaalkeed gaar ahaan dafcadda ciidanka hawada bal eeg falcelinteeda. Oh my god. markaad ku riyoonaysid inaad mar uun heshid gaariga Ferrari awlaadaadana ay riyadaada ku rumayso bal eeg falcelintooda. Ready? 1, 2, 3. Look at the steering wheel. ardaygan ayaa waxaa hadiyad u keenay gabar ka mid ardada galaaskiisa iyadoona u keentay boorso waxaana ku jiray kaba iyo dhar balse markii uu furay ayuu farxad darteed la ilmeeyay. bal eeg labada xayawaan ee bisada iyo danyeerka saaxiibtinimada ka dhaxaysa. dibadbaxayaashan ayaa wadada u baneeyay 2 ambalaas taasoo ah ficil aad u qurux badan. isla ambalaastan ayaa gashay deeqo balse dadkii ayaa ku soo xoomay si ay uga saaraan wayna ku guuleysteen. dabcan wiilkan kuma jiro xaalad fiican xitaa waxa laga yaabaa inuusan waxba cunin maalintii oo dhan wuxuuna cuntadiisa yareed ee uu cunayay la wadaagay bisadan. waxaan dhihi karaa wuxuu og yahay xanuunka ay gaajadu leedahay. waa wiil aad u qalbi wanaagsan. mid ka mid ah rakaabka baskan ayaa siinaya dalad ninkan taraafikada ah xilli uu roob da'ay isagoona u mahad celiyay rakaabka. in naxariis loo fidiyo xayawaanada waa mid aad u wanaagsan. haddaba askarigan wuxuu biyo siinaya dameerkan kaasoo isagana bilaabay inuu hore u cabo. gabadhan waxay biyo siinaysaa fundiyaashan xilli ay ku jireen shaqadooda jawiguna uu yahay mid aad kulul halka iyaguna ugu mahad celinayaan asxaankeeda. askarigan Ameerikaankahi wuxuu biyo siinaya caruurtan reer Afghanistan bal eeg qaabka wanaagsan uu la dhaqmayo caruurtan. mootolahan ayaa gawaarida ka codsanaya inay wadada u baneeyaan ambalaastan maadaama ay waqtiga la dagaalamayso. waxaan dhihi karaa ninkan waa geesi. dabcan wiilkan ayaa gawaarida ka codsaday inuu gooyo wadada markuu wadada gooyana wuxuu sameeyay ficil aad u wanaagsan. dhakhtarkan ayaa maalintii ugu dambeeyay shaqeynaya maadaama uu ka fariisanayo shaqada balse dadkii la soo shaqeeyay ayaa u sacabtumay taasoo aad u soo jiidatay. qobadan ayaa u dhacday dhabar iyadoona isku dayaysa sidii isku toosin lahayd balse uma suurtagelin.
waxaana caawimaad u muujiyey asxaabteeda kale. waxay ku aadan tahay maalinta ciida Kristanka. wiilkan ayaa soo boqday qabriga hooyadiis isagoo laabta saaray qabriga sida inuu u xiisay hooyadiis. halkaas ayuu muuqaalkeena ku joogaa. leegta ka ilaawin nagu soo biirin haddii aad nagu cusub tahay. salaamu calaykum.